waxay daliil u tahay tii hore laga aqbalay waa khudbada wiilka haddii waa soo soontay khayr badan baa soo samaysay waa soo ciidaysatay zakaatu fidri baa bixisay hadda markii halkan la soo gaaraa dib u laabatay qiyaamkii waa ka tagtay qur'aan akhrintii baa ka tagtay tasbiixdii baa ka tagtay salligii baa ka tagtay allabari baa ka tagtay birulwaalidayn baa ka tagtay khayrkii baa ka tagtay waxay daliil u tahay tii hore maysan aqbalin waa khudbada wiilku fiirso saasa cunuu waxay dhahaan camalkaada hore hadduu hagaagsanaada kan dambana wuu sii fiicnaadaa aan dadaalno markaa tawjiihaya khayrka uu ina siiye allah ha barakeena kanaan qaadan waxaan u soo laabani maanta waxaan u fadhinno waa maa'idadii rabbi subxaanahu wa tacaala waa kitaabka alla maxaa ka qiimo badan waxaan maanta u soo fadhiisannay hawlaheenna u soo xirnay waa kitaabka ilaahay wax ka qiimo badanoo la dhegaysa ma laha maxaa ku sugan naba'u maa qablakum wa khabaru maa bacdukum wa xukmu maa baynakum huwa kitaabullaahi almatiin u fiirso kitaabkan waxaa ku sugan naba'u maa qablakum haddii loo baahdo wararka hore intaa laga helaa fircawn warkiis intaa laga helaa qaaruun intaa laga helaa waxoo dhan intaa laga helaa kuwii la halaagay intaa laga helaa odayaal keeni maysid naba'u maa qablakum qur-aankan maxaa laga helaa khabaru maa bacdakum aakhira warkeed intee laga helaa intaa laga helaa ahal naarka maxaa la yidhi kullamaa nalijta juluudahum badalnaahum juluudan hayraha ahal naarka marka naarta la geliyo oo haraggooda uu dhammaado harag galaa loo gelaya maxaa la yuduuqu alcadaab intee laga akhriyaa kitaabka ilaahay baa laga helaa ehel jannaha haddaa u baahato jannada dadka kale intee laga helaa intaa laga helaa wa xukmu maa baynakum xukunka dhexdeedana kitaabkanaa laga helaa waxaad u qiimo badan weye kitaabkan nabigu u fiirsa sal allahu alayhi wasalam ilaahay nabiga wuxuu ku ammaanay reerkoodana uu ku ammaanay qur-aankan nabiga waxba muusan ahayn arijir buu ahaani jiray agoon buu ahaani jiray reerkooda way iscuni jireen ilaahay qur-aanka markuu ku soo dejiyo u fiirso muxuu ku yidhi nabiga alayhi sallallahu alayhi wasallam innahu ladikrun laka waliqawmika fasawfa tus'aluun waxaa yidhi maxamedow horta qur-aankan adiga sharafuu ku yahay innahu ladikrun laka adiga sharafuu ku yahay waliqawmika qoladaadana sharafuu yahay asaga sharafuu ku helay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay haddii la sheego maxaa la sheegaa nabi maxamed baa la sheegaa dhulkaa laga qaaday samadaa la mariyey intaasoo samaa la sii mariyey malaa'ig baa raacday albaabyaha loo furay halkaasaa la geeyey markaasaa xidhi dembigaada kii hore iyo kii dambaba waa la dhaafay innaka la calaa khuluqin cadiim dabeecad aad u fiicanna waa lagu siiyey nabiga wuxuu ku helay kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala waxayna qoladaadiina sharaf bay u tahay reerkii asaga uu ka dhashoo nabiga rumeeyey maxay sharaf ku heleen sharaf waxay ku heleen nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam bay raaceen way rumeeyeen sharafay ku heleen u fiirso waxaad garanaysaa ilmaha hadda wax noo akhrini sharafay leeyihiin waalidkii dhalana sharafay ku heleen masalan qofka markuu daaci yahay markuu khayr badan yahay waxaa la yidhaha war ninkan yaa soo saaray hooyadiisa waa tumaa aabbihiisa waa kumaa aabbaha sharaf ku helaa oo hooyadaa sharaf ku heshaa kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala sharaf baa lagu helaa barashadiisa xifdintiisa sharaf baa lagu helaa akhrintiisa sharaf baa lagu helaa ilaahay baa nas innahu ladikru laka waliqawmika fasawfa tus'aluun u fiirso gaalada sharaf xumada waa aragteen hadday dhintaan naartaa lagu tuuraa looma duceeyo qofka muslimkana markuu dhinto maxaa lagu sagootiyaa ducaa lagu sagootiyaa allahuma kfir lixayina wa mayitina wa saqiirina wa kabiirina wadakerina wa unsaana ducadaasaa loo wadaa sharaftaa muxuu ku hel kii gaalka laguma tukan u fiirso kitaabkanaa lagu helay kitaabkan buu rumeeyey kanuu qaatay kan buu ku dhaqmay markaasaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay nebigiisa hataa markuu dhintay salaada lagu sagootiyo bedelamaa nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam ninka gaalka markuu dhinto qabrigiisa aad soo martaan abshiruu binaar naar ugu bishaareeya naar ha loogu bishaareeya naar alla ha ku geliyaa la dhimxaa kitaabkan uu diiday sharaf markaa ma doonaynaa hooyada inay sharaf yeelato ma rabtaa aabbaha sharaf inuu yeesho ma rabaa carruurta inay sharaf yeeshaan marnaa kitaabka aan u khidmayna war kanay sharafta ku jirtaa kanay nolosha ku jirtaa kan bay qiimaha ku jirtaa maanta ilaa inteen mar hayna kan ninka barta maanta gaajo u dhiman inteena baan saasaa naga dhaadhacsan kan tacliin ma aha arrintaa kufrimay u fiirsado dadka qaar maanta waxaa ka dhaadhacsan haddii cunuga taxfiidka la geeyo qur-aanka alla dusha uu ka qabto axaadiisii nabiga uu barto madrase islaam la geeyo madrasada uu dhammeeyo
jaamacadda uu ka baxo jaamacadda islaamka u dhameeyo cunuga tacliin muusan baran wala reerka way baarteen waxa ay shaqo intuu keeni doona arrinta waa lagu gaalo u fiirsada war goorma warka ilaahay lagu gaajooday war nin gaal uu qorana wax uu noqdo war kitaabka rabbi subxaanahu wa ta'aala loo qadmeeyo malihin yaan la baran luuqa hal la barto ilaa halkan hawsha la gaarsiiyo sax ma aha arrinta khalad way ninba wuxuu ii sheegay ilaahay subxaanahu wa ta'aala caruur buu siiyay caruurtii markuu siiyay qeyb baa taxfiidka la geeyey qur-aankii bay xifdiyeen a'immay noqdeen diintii bay barteen ducaad bay noqdeen qaybtii dambaa waxaa soo baxday inay hooyadii ku leedahay qaybtii hore way lugo'deen qaybtan dambe waa inaan la lugoynin qaybta hore maxay ku lugoyeen qur-aankay xifdiyeen sunnaday barteen khayrkay ka shaqeeyeen dadkay tukiyeen taajudkay tukiyeen taraawiixday tukiyeen ninka waxaa lidhaha mustaqbalka qalun midka aan tukanin meesha loo wadana la garana waxaa leedahay mustaqbalka kormare rag fara badan baa saa aaminsan gabdho fara badan baa saa aaminsan ninka sidaa aaminsan oo khatara ku suganta su-aasha waxay tahay dhaqaalaha yaa bixiya ilaahay baa bixiya soomaadan arkin nin jaamacadaha ka baxay heer masta diyaari weli wuxuu ka baxay qaybta iqtisaadiga si lacagta loo keeno lacag loo dhalaaliyo wax loo xisaabo haddana waxa ma hayo mid soomaadan arkin si wax loo qoro ma aqaano si loogu hadlana ma aqaan ilaahay xooluu ku siidaa xoolaha yaa bixiya khaaliqaa bixiya halla barta luuqada la waxaa leenahay kitaabka rabbi subxaanahu wa ta'aala gacanta miigta lagu qabto ayadda gadaasheeda maxaa lihi ilaahay wuxuu yidhi fasawfa tus'aluun innahu ladikru laka waliqawmika fasawfa tus'aluun ogaada kanana la weydiin doonaa aakhare markaan tagna wax kale la weydinayo ilmaheenna magacooda nala weydin mahayo guriga nala weydin mahayo maxaa lihi man rabbuka wamaa diinuka wamaa nabiyuka rabbigaada waa kuma diintaadana waa tuma nabigaadana waa kuma maxaan ku jawaabi doonaa hadda waa nacne hadda waa la nacay adilada waxay caddaynaysaa aakhare marka la tago